السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا وناكسن داوديال مeel kasta oo daafaha caalamka naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah sida aad ku aragtaanba shaashada hore waxa aan wareysi la yeelanaynaa haddii ay baraali ka noqdo waan uga mahadcelinayaa suxufi aqoon-yahan macallin cabdulqaadir maxamed walaayo cabdulqaadir ku soo dhowo marka hore barnaamijkan gaarka ah oo aynu diiradda ku saari doonno haddii ay baraali ka noqdo waxyaabo badan oo ah ay ugu weyn tahay dilkii shantii wariye ee 1991 iyadoo run ahaantii cabdisalaan uu ka hadlay dhowrka qof oo kalena ay ka hadleen adigana ay kuu soo halqabsadeen gaar ahaan cabdisalaan uu sheegay in adigu aad meesha joogtay bal waxyaabaha aad ka ogtaa marka hore ku soo dhowow xaqiiqdoon t v marar badan mar horena waynu kulannay waana kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga aad siisay ku soo dhowow xaqiiqdoon t v cabdisalaan bismi illahi raxmaan raxiim marka horeeto aan adiga iyo muxuu ahayd asxaabta la socota kuna ku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waana mahadsan tahay runtii soo dhoweynta iyo xaqiiqdoonka oo maxaan ku sheegaa arrinka ku saabsan wararka ayaamahan ku weynaa warbaahinta gaar ahaan markhaati furkii cabdisalaan jimcaale uu ka hadlay saxafiyiinta berigaas lagu laayay compoundka ama xerada wasaaradda warfaafinta marka waxa kaliya aniga hadda aan ka maqan waxa ugu weyn waxa waaye cabdiqaadir may maqlaysaa cabdiqaadir cabdiqaadir markii wariyaasha la laayay 1991 adigu waxaad ka mid ahayd wariyaashii ama mas-uuliyiintii meesha joogay waktiga adigu ma xaggee ku sugnay aniga aan madaxka ahaa wakaalada wararka soomaaliyeed saana oo la ii magacaabay intii maamulkii madaxka ahaa markay dhacdeen isla meeshan baan joogay codka kor ma u qaadi karta xoogaa codkaadu liite waa ku maqlaa si fiican axmed dooni waa ku maqlaa si fiican baa ku maqlaa haddeer su-aasha iyo inaad tijaabo ku jirto iyo inaad su-aasha kula ii kala sheeg marka hore si aan maaragtani isna u dhicin maxaa cabdiqaadir waxaa jiray beryahanba warar laysla dhex marayey oo nin isaga markaasi su-aasha ma toosa u galaysaa mise may toos baynu su-aalaha u gelaynaa waaye toos baynu ugu jirnaa marka waxa weeye waxaan rabnaa insha allah in bulsho badan dad aad u fara badan bayna daawanaya nin odayaa tahay macallin baa tahay suxufi rugcadaa baa tahay in badan saxaafadda ku soo jiray ruhaantiina aqoon-yahana marka ruhaantii waxaan rabnaa dhowaan waxaa soo shaac baxay in nin isagu suxufi ahaan jiro la yidhahdo taakeeye oo ruhaantii lagu soo eedeeyey in uu dil markaasi sameeyey dhowr wariyana uu ku dilay dad badanna oo la waraystay boosaaso nin ka soo hadlay siciid la yidhaahdo cabdisalaan oo isugu dhajooga isaguna uu ka hadlay cabdisalaan wuxuu ku halqabsaday in cabdilqaadir walaayo uu joogay goobtaas arrimahaas maxaad adigu ka og tahay bismi illahi raxmaan raxiim mar labaad waa mahadsan tahay runtii arrinkan waa dhacdo يعني وقت اللي هذا أو حقيقة أو جت نك عبد السلام يرادنا مرخاتك وابلبو مرخاتك ولا جوجا يا محاته يا وحش كلام مغلي عبد الرحمن عبد السلام وحا محاته لو يرادو أفكا محا هاي
abukaatinimada waxa lagu yiraahdo waa testimony oculare ama eye witness account marka isaga golajoog uu ahaa sawirka uu bixiyay waa xaqiiq weeyaan runtii waana maartay ku raacsanahay saas ayaa ku dhan laakiin aniga shakhsiyan dhacdadaas tafashun markii ay dhacaysay aniga maan joogin runtii wasaaradda maan joogin maalin kuma laakiin wasaaradda aniga madaxda wasaaraddan ka mid ahaa sonan director ka ahaa absalaan hataa wuxuu ka mid ahaa dhalinyaro aniga aan ku tashjiiciyey meesha inay soo galaan isagoo madbacadda ka shaqeeya marka intaas ayaa mataqaanaa maartaankooga maxaa ahayd laakiin ninkan taakaya meeshuu joogay ciidanka USC oo idaacadda waardiya ka ahaa una ka mid ahaa isaga runtii inta aniga aan ka yaqaan isaga wax hadda toosa oo aniga isaga aan dhaxsaday ma jirin runtii laakiin wuxuu ahaa nin qorigiisana wata shaqaalaha maxaan ku sheegaa waardiyaha meesha ka ah oo maxaa USC da meesha ay keentay ayuu ka mid ahaa marka dambe tan lagu yiri wasiirka warfaafinta berigaas gacmo dheere kooxdiisu ka mid ahaa marka dhacdada حقيقة نانك بنت الله ونحرسته وأنا فيني ولبا محا هايتو ما هاد عدى يو نكلي ذات حانجي ولكس أن صاحبها عبد القادر تشول أسنو بنت الله ونحرسته وأن إعلام تسجل إنه سيرفيسي إيطاليانو أو إذا عدى كشغلين تولى مع البروفيسور نكاها جامعة مقدشو هايتو سومالي ناشونال يونيفرسيتي نكلي هذا أهم شيء عليه واحد سوسته ما قصرت من اللي أمس بدن أو برنامج شيء وهذه إنه وإياه مقترنتي إن كان أبوك الوري اللي ما حسوسترنتي لكن أنت هذا أنا محسوس كل مكان وحكم إذا حتى نكر هذا معاه هاي عبارة علي إدلي عبارة علي إدلي إلها ونحرسته كم مجرين ذاك مالك كسمالها أنت لها قبتي ماشى اللوقا اللي كم مجرين بغادر انك ديريديس سكله ايدنا وقو مارت يعني بابا عندنا دي لا يراد واتاي ان waxaan rabaa inaan ogaado taakay qorigu sitay ciidamada isagu markaasi SSC USC buu kamid ahaa meesha joogay meesha laakiin adigu isaga ma la kulantay taakay laftigiisa adigu meesha ma kula kulanto ma arag ما أعرف أنت وحن أركي نم دليرا أو قرية سايستا مركز دمبتنا عن مغلى برنامج فيه إذا عد كجلارنت لكن سو إذا عد كان لا أنا ما عندي سمين أنا إستنا أقوم قلنا سمان لهم فهمتي ننهر أنه كنا ما فهمتي واتاي أديك مركا وقت جاس لشيء إن دلال كدعيين adigu waxaad ku sugnayd Soomaha qaybta soona xagga sare qaybteed ku sugnayd adigu markaa xafiiska oo raafinta sidoo uu dhisan yahay dabaqa hoose oo maxaan ku sheegaa waxaan biyantaar la yiraahdo waxa maartay yani meesha uu geeska oo madaxtooyada xaggeeda ay xafiiska u runtii laakiin maalinkaas event markuu dhacay eventka dhacay maana meesha maan joogin runtii haddii aan joogi lahayn waxa macnaa ay samaynaysa ma jirto oo awayaan waa ragaba kula dhagay waxa kamid ah president saaxiibkeeda oo la yiraahdo ahaayeto leeye oo maxaan ku sheegay kula dhagay oo waxa anu kulay leeyaha un baan qayb ka ahaan lahaa haddii ay suurtoobi lahayd in aan maxaa ahaayeto meesha golajoog ka ahaada runtii laakiin maqaadir ay bay ku dhacday runtii oo أنا كنت حاسس كل سابع أنا هاي هذا ويلا هي دليرنس حتى ليج كلها وقت أنا هاي جل رنتي حتى أنا وأنا هاي رنتي ما لباق فوز أما دبات إسقاسية ساعة أما قدرهم تكون سمينا ولا يوم عن فرسان رنتي من اللي هي تبر عن استجع اللي عن كفر صدقت دباتين جار رنتي لكن لا هي مقدرة تسكون نقطة إلهنا مرخاتي يا رنتي أنك أنشئ أنا ما وحن كبان أبورنا ننتبه تبعه أنا لا هاي وأنا خصوصا لما نقول شوف في قصة آكا أو كوري هرتيسا كنت قال لما أيان لبدا صعبة بدك تبدأ إذا قرر أفكار صار وأنا كل استاية معه بركة ما أنا هين كو إلا بيصير لكن شغلنا كنت مدرنتي بركة واحد بعي كنت ربنا كنت هو ترواج لنا مكاس لكن وقت مضى لما هذا كنت
من كان هذا أيام الإسلام يسوع شعب إيو أبو سفيان إيو حاصل إيو أنا في الجمهورية الصومالية إيو محا هاي طلياني وحقبتي إيو كوح اللي يراد محا تلوذات وحاس أصلا هذا اللي مثلنتي ما وح وكود كل ما أقام رنتي يعني تاسنا كل وحاسب بحدنا محا هاي waqtigaas oo saari doonay nin kale ayaa isaguna ka soo hadlay Soomaaliya waxaan filayaa inuu boosaaso iyo meelaha ka soo hadlay wariye ah Siciid la yiraahdo ninka isaga ma taqaan Siciidana magacaas waa xusuustaa aqoon laakiin uma leeyahay runtii saakan sawirkiisa waxaan ku arkay social media inta uu sheegayna xaqiiqo ahayd runtii من كان سعيدة هبين كان الله ونحرسته محمد سياد بره ومدحتويني انتو كسوب إذا عدى مقدش سوهر مرايو إذا عدى انتو استاغي الباب كذا يا سعيد أنتانا من مغنقروب مشكش أنا اللويري حكويري وحاسيو ودان وجلاسيات بره الله ونحرسته حكويري وحاسيو ودان يسها وطني قاسي صار مشينا كورا سعيد isla habeenkaas inuu xasuusto in kala ma aqaan runtii aniga oo wardhigley meeshan daado jooga ayaa qorooyin USC intii idaacada ka soo qabteen soo indhaha ka xiran Siciid inuu xasuusto in kala kulli ma xasuusto Siciidanteena la soo qabto indhaha laga soo xiray ayu waxay keenay xabadaas iyo riile keenan aniga intii keenan laba nin ahaayeen runtii mid waa dhintaa Allah u naxariisto marka waxaan warninkan Siciidanka antana Soomaha harisi daayo oo meesha ماله وكبد باي سجى وقصة فجأة سلسلة حتى لو الله نحرسته ما أنت أنا عارف القوية يا رجل مع هذا حس الترى إلهي هو نحرسته ومرنا بنتي يصير أساسه كتو أيام حقها هاي أنت إيش جاي أيام حنقول best ولا place أو أصل ورالي كويا وكبد هذا كرو هي يقول مش قوينا مش كل ده رجل مرة حالات ده سيرته في أني أنجوي لها رنتي نفتن وديار لها بس alternative كلام ما هي سنتي أنا تكلم بعينه وواجب مقدسة أو إسلامية أو ضدنماء أو محنكوش أمارة يعني القفك اللي هو قياس كرو ضدنماء سنتي أقولن تاي أمارة وات عبد السلام السجع حجيس كبرتين عبد السلام هدي أنا هوست ورا عشان أنا مقدنا رنت مقدرتين سوى أو متبعتك الشقية أيو إعلامك وأدو الربيع وحيو إنه مشاسن فاينان كسوريو وأن إذا عد إماده somehow أنا مسا كل جسنا ما اللي ربنا أنت لا سارج مش هذا قار كل جسد شقيان وأن كوسطي إن إعلامك إماده أما كهذا لا رنتي مرجع أنا وحنقول صارنا ما يحكي حتى إيمانس يا most welcome مرجع إن برجي محنقول شيء أو دولت جستي إن بربكنا ما غان عد ماشي سوق صبيري لكن وحو سمي وحده جرافيك ويتنس يعني وحو صوري وقلن محرقه يبوك سيدي وحو دعان الف الى ياء رنتي ابسانا الى خرسيو حقيقه كورم رنتي لكن waxaan u soo joogay Cabdulqaadir Ali lawa u soo Cabdulqaadir waad u soo joogtay dilkiisa oo xaadir baad ahayd markii uu taakay dilay Soomaa markaaseeto meydkiisa ayaa dadka qaaday ayaa la joogay maalinkaasna sida oo maxaan ku waqti maxaa ahayto 8 saac maalmeed ahayd maarta yani waqti qorraxda banaanka talo oo waxba qarsamayn okay sidee wax u dhaceen marka arintaasi u dhacdo watan warfaafinta shaqaalaha markii ay shaqada ka rawxayaan waati wasaaradda banaankeeda baabuurtii ku sugaan ma garatay Cabdulqaadir Allah naxariista iyo gabar sida badan israaci jeen isku xaafadahayeen ayaa jaranjarta wasaaradda warfaafinta laga galo albaabkeeda jaranjarta koowaad isaga oo taagan oo baabuur sugaya gabadha markaas inay jirto kale ma aqaano ayaa waxay yimid ma ahayd yarkan taakay iyo ninka la socda xaajid ma aan maxaan ku sheegaa oo dagaalka banaanka maartay wata marka waxaan sheegay aniga aan ku maqlay maalinkaas maalin horta ninka waa xanuunsanaa sida maartay aan maalmahaas maqlay
xanuun bronkiitan iyo xasaf ayaa hayay inta keeyaba xanuunsanayay markaa marka wasiirka warfaafinta lacag u soo qoray oo yiri maxaa ay maamulka lacagta ka qaada lacagtan ma garatay waa uu soo baxay علي محمد عبد الله من يرادو ورياش كنا جينا markii kana noqdeen director of administration maamulka lacagta loo dhiibay ayuu u tawlatay wadantan salaawan xariisto si caadi ah dhintay markii uu tagay oo lacagta weydiiyay wuxuu rinayo adeer maanta lacag ma haye ii soo noqo adiga waa ka tagay maalinka dambe tuu yimid wuxuu rinayo wali khasnad lacag kuma jirto ninkan waa baxay agaasimaha guud xafiiskiisa u tagay markuu meesha tagay isla maxaa wuxuu ku soo noqday kii lacagta markii wuxuu u qaatay in la mirmirna sida aan qiyaas arrintu waa baxay baabuurku ku noqday baabuurka qoriga ku dhici jiray oo baabuurka lagu wardiyayna oo soo dafay ninkii la socday oo baabuurka aan force aan u marinay qaraabadiin ama si uu isla ayaan arkaysan gaari ku waday ay qoriga isla qabsadeen isla qabsadeen ayaa wargafashada xabadii way faqatay Cabdullaahi ilo baabka taagan oo runtii aan loola qasdin laakiin waqtigiisa meesha ku ogaa ayaa madax xabad ka qabsatay wali waxa jira waxda sketch oo waxaan ku sheegaa man salaha albaabka meesha maarta warambada oo qaracaan wala markay ku dhacdo baashi soo noqodkii ay xabada ninkan hada sheegay xabadu xariday marka taakeeyay qoriga isla سينك جريليتها أيها كل جعنت كنا على رنتي قف كتورة لكن من كان وكر ريباي إنه من كان كورة وزارة الله صقره. أيه. من كمر كم ماشى كل أنت أنا فرق سوق حنباري كم من هاي لكن حنسمع هي وحل جرنجرت وزارة الهوست مالها ميت كلام دقي أنا حفيز كان دقي ده حفيز يقول لنا صوب توي ميت كلام دبر رنتي. By that time ninkan markii shilka dhacay baa baxay wasaaradda waxa la laba albaabka dambe oo dhinaca madaxtooyada xiga ayuu ka buuday dhinaca madaxtooyadana matqana kulle USC baa meesha joogay marka maalintaas ninkaas ugu dambeysay araggiisa waxa marka ugu wada marka arkayo oo la leeyahay yani Abu Sufyaan iyo Abu Magiis iyo waxa la leeyahay iyo calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo Talyaani inuu keenay inuu yahay koox la yiraahdo maxaan ku sheegay wadaag waxa soo dhanba hadda maqlay runtii marka taasna waa another history oo aan hadii la igu aan ka bixi doono marka arrinka saas u dhacay wixii kale oo dheeraada hana absalaana waa tahay waxaan rabaa Cabdiqaadir inaan ku weydiiyo afar wariye marka laga reebo Cabdiqaadir uu halkan xabada aad ogeyd inuu xabada ku dhuftay oo booday oo aad goobjoog u ahayd meedkiisina qaaday ilaa uu naxariisto afarta kale markii uu Cabdisalaam wuxuu ku sheegay waraysigiisii in marba qof wariye ah inuu iridka intuu isu taago uu dilayay oo luuqa la gelayay afarta wariye ee la dilay goorma adigu ogaat maalinkaas maalin ku xiga umaleynaya runtii yani أيه. مثلا فيت بينهم. مركب وربحنتو سيدي لك كوسو قاعد. مرة قربن بومان وقادر أنت هذا ويك مركز سيدنا عبد السلام اسمان ما قلب برمت. اسمه عرق. واضح وربحنتو سيدي كوسو قاعد مركب أديقة دتك يا دلي بالجري قاب نوعي بالجري وربحين ما كان شيء سيد لو دلي دتك. هذا دجال مكان رجل لا وعداني صنع وحقرص إذا ما هي. عدان بهيد انت كي وددك لاي ورياش هلكا كلاي هذا حسيتو يعني وحاب كمر خات كعي نينك كلا جوجا او ميد كدول استاغل او دين ديغود ku dhex jiraan soo arkay meesha uu tilmaamayo masako halada faara lagu yiraahdaa waa light house oo maraakibta badweynta ku soo hogaamiyay meesha caasimada magaalada Xereed ay tahay gurigaasoo meel hoostiisa ninkan la galaalay marka ninkaas saaga cadeeyay oo hal u sheegay sidoo ay runtii wataa isagu wuxuu sheegay Cabdisalaam wuxuu sheegay in ninkani doonayay inuu maamulka qabsado wariye noqdo uu ka qaado mas'uuliyiinta meesha
caqabado marka waxaa la yidhi aadishi dadka hadlaayo fikir noocaasa xifradiisa doonaya inuu dadka ku laayo ayaa ahayd miya mise arrimo qabiil ayaa jiray bas leeda هذا ورثة قبيل معلومة سيرته ومعلميه الصوماليين أو دمته قبيل كم تغنى عارضه بس مركز USC أنا أنقله هاي هربالون سبين SSDF مركز أنقله هاي هربالون سبين سنة مركز أنقله هاي أساس هاي SDM مركز أنقله أساس SDM مركز قبائل كاسوا جلنا ماشي قبيل كم مرة رونتي لكن ماشي كأريو ماشي مثلا كريحه هديبا نكان سوق قرية سوت الله أقول إنه ماشي كارلو أو نكان معلم بوها محنكش مثل عبد الشعالي ومعلم نقول لها يعني واحد بدها لا ماشي ما بتعلم وسلمى هو نقول بو هاي برهانك يعني وانت هذا كل ماشي دفع كقد عد كذا برنامج صار كقد أردت أنت اللي كقد ريسيرش أسمين كقد يعني dadka awreesanaysa aqliyada iyo mumayisnimadaada iyo sida aad tahay iyaga ku baran kara runtii laakiin qof xabad ku dhufaqaad meesha aqli fiican ma waa tahay ilaahu naxariisto intii dhimatay cabdiqaadir waa soo gebagabayna waqtigii bay naga gebagaba insha allah waxaan rabnaa insha allah in aan dhowr su'aalood ku weydiiyo oo bulshada ka guuxaya Soomaaliyeed taakeeye adigu intii aad idaacadda joogtay ama goobtaa joogtay warbaahinta isaguna uu ku jiray weli ishaadu may qaban Soomaa oo ka garanaysid dadka horta tuslaan inta bago meesha waa joogay waana ku arkay yani raggaas qoryaha wata oo meelaha ordaya oo maxaan ku sheegay firfircoon oo dhalinyarada ka muuqato waa aha runtii laakiin aniga isaga ma wada hadal mana wada sheekaysan runtii laakiin maxaa ahayto meesha uu ka shaqeynayo markaasna aniga idaacadda shaqada ku maran mas'uul ka maahan aniga waxaan joogay Somali News Agency sonna ayaan joogay runtii marka idaacaddana waa gooni sonnana waa gooni weyn aniga waxaan ka tirada department of publication maaragtay so broadcasting waata raggii waqtiga aad wada joogteen aad wada shaqeynayseen dhacdooyinkaasi dhacayeen dhibaatadu dhacaysay ninkan dadka leynayay yaa ka nool aad ka xasuusataa oo goobtaasi ku sugnaa oo meeshaasi joogay horta xaaladda maalinkaas la joogay waxay ahayd xaalad la kala cararay runtii oo bixi ay gaarto nin walba to mataqaanaa meesha foolkiisa amaarta wixii kaleeto oo meesha ku xasna xanimana wixii aniga aan bixi karo ama isoo mutay gacanaan ka geysto runtii marka hadda lama dhihi karo hebel iyo hebel iyo hebel meesha waa lagu kala cararay runtii marka laakiin ninkaanto ilaahay maqaadirtiis sibay u joogeen waxayna u qabeen rajo ah in waxaan isbedeli doonaan oo caadi ay ku soo noqon doonaan ayagana hawshooda wariyanimadii iyo saxafinimada ay wadan doonaan taas ayaa mooya hadda yani dadka hadda la tilmaami karay oo la dhihi karay waxaa ka tilmaama ahaa aadan xusitara allah u naxariista oo ahaa berigaas iyo berigiis hor allah u naxariista ahaa director broadcasting yani magaasinaha idaacadaha ayuu ahaa ninkaasna isagana meeshaaba lagu qabsaday runtii inta aniga aan ka magciisayna nina iigu yimi maxaan ku sheegay xaafadeeda markaasuu wuxuu igu yidhi ninkaasaa shalay ciyaalka ku dhigan idaacadda berri imaanaya waxaan warnina ninkaas haddii dare berri oo idin yimaado meesha meel ugu sahlan oo ku baxsan karo ama uu ku badbaadi karo isleeyahay geeyaan ku yidhi runtii dare subaxi ilaahay maqaadirtiisa waa dhintay allah u naxariisto maanta ana carabkii qoyan yahay isaga waqtigiisa waa qalalay ilaa jannadaas siiyo markii subaxdii uu soo noqday ayay ii sheegeen ninka meesha meel ugu sahlan oo isleeyahay waa ku badbaadaysaa ninkaa la geeyo maarag marka allah u naxariistay gabar hataa uu qabay mari cali mudel jiray oo wasaaradda warfaafinta wasaaradda waxbarashada ahayd oo kooxdan iftin oo gabadha qaadi jirtay heestan alhulos dhawey ayuu qabay runtii marka reeraheeda ma loo geeyey meel kale ma la geeyey maahan adiga markii dambeeto nairobi aan ku arkay maxaa 1995 isagoo oo maaragtay aniga meeshaan imid xerooyinkaas xootiga maantiga laakiin halkaan joogaa ilaahay mataqaanaa maaragtay meeshaan ugu badaa alxamdulillah marka ninkaas intaasaa isdhex marnay laakiin
cid kale oo looga qaateena oo madaxa oo wasaaradda joogtay ma jiraan meesha waxay gaartay xaalad la yidhaahdo bixi maar waa tahay waa soo gebagabaynaynaa insha allah waktigii baa inaga gebagaba siciid anteno iyo cabdisalaan labadooduba fikradaha ay sheegeen oo ah in taakeeye uu dil ka geystay dadkaana laayay fikirkaas ma la qabtaa adiga aniga waxaan la qabaa in sawirka cabdisalaan uu bixiyey in xaqiiq uu ahaa aniga maan joogin runtii laakiin madaxda wasaaradda warfaafinta qof igaaga madaxsan marka maalinkaas maba joogin ba runtii iyo maalmahaasba marka warkood xaqiiq wayaan runtii waad ku raacsan tahay markaa labadoodaba in ninkaasi uu dilka geysto waana rag la rumaysan karo oo aad adigu aaminsan tahay warkooda aniga kolley ma beeninayo warkooda run buu ahaa runtii weliba waxaa weeyaan qof dhaartay yani waxaa ka xoran qofka dhaartiisa aamin waay cabdisalaam waa kan dhaartay runtii oo maaragtay 3 walaayood maray marka wadaadkan arrimihiisa kale taa hadee isagay u taallaa moogtahay midda kaleto in yani saanoo kaleto la ii waraysto iyo in maxkamad la iga waraysto labada waa isu keemid runtii halkan waddankan aan deganahay dadka qaarkood askartana waa ka cararaan maxkamadana waa ilaaliyaan maxkamadana laga yeeraa markaasaan markhaati furaa runtii maalinkii ugu horreysana waxaa laga ruriya haddaa markhaati baana sheegto Sweden ogo waa lagu xisaya maaragta waa qosle marka aad iyo aad cabdiqaadir walaayo aad baan kaaga mahad celinayaa ugu dambayntii waxaan rabaa inaan su-aasha ugu dambaysa aan ku weydiiyo ay tahay ma jiraan mase xusuusataa in weriyaal kale oo waktigaa aad joogtay oo aan kuwan la dilay haddeer ahayn oo dhibaato loo geystay ama la dilay oo aad xusuustaada ku jirtaa ma jirtaa baa is leedahay adigu ma jirto ma jirto qofka media personalitiska badanaaba qof dil loo qura ma runtii inkastoo hadda waqti xaadirkan dadka kacay ama iclaamka soo galayba runtii aniga shaksiyan waa qaldimi karaa runtii waa jiraan dad mumayiza oo fiican oo laakiin dadka qaarkood waa la hadlaa iska hadalda u hadlaan runtii laakiin sida dhaktarnimada loo barto abukaatinimada loo barto injineeriyada loo barto ayaa iclaankana loo bartaa qof aan waxaas 12 sano secondary school aan samaynin ayaa maanta idaacad ka hadlaya runtii oo wuxuu doon iska sheegaya runtii oo ilaahay ogaa runtii marka waana shaqada ugu dhibka yar leh oo qofku uu qaban karo because mujtamacina waa dad hadla maxaa ahayd badanaa hataa beriya waxaa dhacdayba warbaahinta in loo galo tikid dibadaha lagu aado waa la soo eryaday nin soo raacday Nairobi ayaa la tagay markaa waxaa xasuustaa ninkaana wuxuu haystaa waxyaabihii dibadda loogu qaadi lahaa hataa qaar dhaayaan arkay moogta waxaan rabaa haddii rabo inuu dhoofo inuu shaqadaas gala maba aha runtii waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo ninka kan haddeerto isagu magaca Abu Sufyaan la yidhaahdo taakeeya la baxay ma is leedahay ninkaas waa ninkii dadka dilay ee isaga weeye ninkaas ma hadda isbedelka ku dhacayo waayo limada aniga hadda maalinkaas ciradaan maan lahayn runtii ma garatay aad iyo aad ma garatay qofka every 10 years isbedela ku dhacayo runtii laakiin taakeeye haddii isaga magac uu qirtay inuu faafinta shaqeynaa qirto waxaa ku dheeryahay allah u naxariistay inuu yidhi cumar cartaan waxaan u ahaa weriye gaara cumar iyo isaga allah u naxariistay cumar saaxiib baan ahayn runtii afrikana waa la maray runtii yani waa beentii miyaa markaa cumar uma ahayn lama ahayn weriye cumar carte markaa weriye uma ahayn gaara markaa miyaad leedahay ma shaqa kuma lahayn fiiri cumar allah u naxariistay maalinkan dagaalka 4 bilood uu dhacayo maalin ka hor ayaa sacuudiga diyaar u soo direen allah u naxariistay cumar maalinkaas waddan ka baxayba marka statuskiisa ma gaarsiisnayn inuu
wasiir maxaan ku sheegaa u noqdo wasaaradna isagu wuxuu sheegay raadiyo muqdisho ka shaqayn jiray wariye ahaa soo shaqeeyey ayuu sheegay ma ka shaqayn jirin laakiin ومركز دبنا وحنا وسيرك مركز دبنا وحنا رئيس وزراء وحنا وريه سجار كا ما I don't think ما لنا أنا تاسرين حبك بجران أدبن كو سلامي أدبن مع سنتهاي صحفي معلن عبد القادر محمد ولايو أدبن كاجم هاد عندي وقت كاجا قالي قاعدي ورتي شرف إيه كرام وكر كاجا هاتو حويه أدبن كاجم هاد عندي مركو وادي مر لبعض يمس الدحاد بوقت كاجا قالي قاعد سيسي الله أكبر بركيه آمين أدينا الله بركاته وحاولنا حالنا قلته إن حقيقة الشيء ومهم ورنتي لكن هذا ما هاي وريه اللبن ما هنقطة وريه وحاول يعني أنا مميز هرنتي إنه يقف السؤال إنك أكاونت بالله مذكر يا هاي ما هاي توح وشيء يقانو برتلمامات وليه هاي لكن ما كوش أقفها مسكول عادي حتى السمين وما أنت محقش ميكروفون مسكلا قيلنا يرنتي أنا محب أخرين هتا بريان هانتجي شركة كان شيء نرى أن تنتجي أيام وحان حتى كمبلا نمر يرى لكم وحان أوكي وريمة هذه ساكي نالله نعرف الصبح ما أخرسه يقول كله ما أخرين أنت سامر في وريه كنت هذا حكته وينات هاي الساعة ليش يعني وحاول نوريه أو مقالة فرد يمكن يسميديا states are very vibrant يعني very active information بدنا نلاقيها رنتي من وريا ماشي جوا أو خاصة بحث ذي ودن أو لو اللي سؤال يدي هذانا عن حوار سمين كرين ماشي في جنا هو قرن كتامر كان يسكا وريا وقت كان إنه يمار مثل هذا ما سنتهاي خير aad ma santahay عبد القادر ولايو وانو markaas salaameyna waan idin ka mahad celinayna daawashadiina iyo waqtiga qaaliga aad urteen aniga cabsama shibinay la socodsiinay barnaamijkaas insha Allah dhamaantii inta ay seegtaan waxay ka daawan doontaa YouTube ka xaqiiqdoon TV dhamaantii waxaan leenahay amaan Allah amaan Allah amaan rasuul